السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتو هانو وضع dhirtan waxaa la dhahaa malfuuf ama cabbage ingiriiska lagu dhahaa. Soomaaliya geedkan maxaa loo isticmaalaa, bal tacliiqa iigu soo sheega. Itoobiya maraan tagay waxaan arkay maraqay ku darsadaan caraf, sida uu soo carfaayo si usoo shiiraya, laakiin maraq ahaan markii loo kariyo wuu fiican yahay. yuudka ku jiro maadada la dhaho yuuda laga helaa. dadka daraqyada qabo ama yuudka naaqiska ku yahay waa loo soo qoraa. geedkan salaatada asoo kalar ahna wuu jiraa oo maasha Allah barbal asxaabta warqada usoo kala furaya. asxaabta ka faa'iideyso saa u samaysan lahayd. maanta cunto carbeeda noo wadaa. masaarida waxay dhahaan maxshi malfuuf, ayagana way isticmaalaan. cuntooyinka carabaha ay badanaa isticmaalaan, qaliijkoodna laga isticmaalo waaye. maxshi malfuufkan saxankii 17 riyaal la gadaa meeshaan. gurigaada ku samayso wax baraa ku leeyahay. maasha Allah tabaaraka Allah. salaatu ala rasuulillah. cunto kasta oo caalamka laga kariyo aad taqaanina fiican. marka hal warqad usoo furay biyaa digsi kasoo buuxsada ujeedeed sida baastada oo kale. xawaaji aan kusoo daray, biyaha xawaaji leh ku daraysaa. hadaa rabtid xawaaji iyo cusbaa ku daray, laakiin waxaan isticmaali doonaa maanta waxa la dhaho raqiga dhanaanka ama raqay shiinayso af Soomaaliga lagu dhaho. dhowr warqadaa ku riday ilaa 2 daqiiqo camal dabka ii saarnaanaysa. waan kusoo hurinaya, waan ku gidgidinaya, haddana waan ka bixinaya qayb kaleeto ilaa aan ka dhameeyo. wahaakada asxaabta ka faa'iideyso saa u samaysan lahayd maxshi malfuuf waxa la dhaho oo maasha Allah tabaaraka Allah. alaabta dhanaanka sida dhangalow oo kaleeto camal alaabta u soo dhadhamaya. 2 koob bariis masri isticmaale, toon, kabsar caleen iyo bagdoonis, basal qalaadka ku soo shiiday, 3 nooc oo buhaaraade, yaanya soo shiiday 2 xabo, liin dhanaan ku daray. waxa kale oo ku daraya qal isticmaalaya, qal cudwi xoogaa saliid saytuun shiishiida ku daraya. intaana isku soo walaaqaya intaan gloves gashto si fiican iskugu walaaqo. bacdin duubitaanka noo bilaabaya. ka faa'iideyso saa u samaysan lahayd waxa la dhaho maxshi malfuuf. maasha Allah tabaaraka Allah. hadaa alaabtan baratid ma iska dhaafaysid. bacdigeed waxaa sameeyay dibsi rumaan aan kusoo daray. dibsi rumaanka ama dhacaanka rumaanka oo la soo shiiday. alaabtan dhacaanka rumaanka iyo raqay iyo waxa isku jirjira waa soo jarjaraya. qaybtii hoose qaybta adeega hoosa dhiganaya, ma tuuraysid. maasha Allah tabaaraka Allah. sida waraq cinabka loogu dhigo bataatiga waa kas digsiga salkiisa waxaa soo dhigay warqadihii qaybta adkaay. inta wixii oo dhan isku soo walaaqo ujeedin saani u taalaa. basasha aad ku daraysid laazim inaad makiinada ku shiidid waaye oo shiidowgiisa reereys ka dhigtid. saas usoo duuduubaya. maasha Allah waxay noqonaysaa cunto khuraafi ka faa'iideyso saa u samaysan lahayd cunto carbeed. wax kasta inaad baratida fiican. inay cunto Soomaali bas kuugu ekaato maahan. iskala kici nafteed u roon noqon ku leeyahay. maasha Allah tabaaraka Allah. qaybtii oo warqadaha markaa fidiyay 3 door aan saari doona. 3 door ka dhigi doona. maasha Allah tabaaraka Allah. doorkii ugu hooseeyo waa dhamiyay. door kale saaraya, haddana door kale saaraya. ka faa'iideyso sida loo sameeyo maxshi malfuuf. maajiga waa si kala gooy lana raqaya isticmaalayo, raqay shiinayska isticmaalaya. asana cusbuu leeyahay, cusbada ay kaaga badanin. waraq cinabka iyo maxshi malfuufka waxaa fiican inuu dhanaan ahaado, dhanaankiisana ay cusbo ahaanin. yacni xumuuda, laymuun, dibsi rumaan, khal, waxyaabahaas inuu xumuuda kasoo dhadhantaa fiican. 2 koob dareere ahaan ka dhiga raqigii. qala ku daraya, qalka ku daraya qal dhanaan waa qalka oo cudwiga oo dabiiciga waa. shiishiidan ku daray taqriiban hal qaando hadhowni. maasha Allah tabaaraka Allah. isku walaaqaya. dareerayaashan waxaan rabaa inaan korka uga shubo oo kusoo bislaado. maajigi waa ka bixiyay digsiyan ku riday, waa soo dhalaalay, waa kusoo celiyay. waxa kale oo ku shubaya 2 xabo laymuun aan soo miiraya. hadaayna laymuun aan ku daray ama liin dhanaan aan ka wada laymuunka. asxaabta ka faa'iideyso saa u samaysan lahayd maxshi malfuuf waxa la dhaho. saliid saytuun aan ku daray xoogaa ilaa 2 qaando. dibsi rumaanka haddana ku daraya. biyihii aan ku karin lahaa ama maraqii aan ku karin lahaa oo raqay waxaas aan ku daray. dibsi rumaan aan ku daray. waxaan madow waxaa la dhahaa laymuun sheebaa la dhahaa. saliidin haddana waa ku siyaadiyay. saliid saytuun waa wax mama ka dhibayso. maasha Allah tabaaraka Allah. laymuun sheebadaas ku dar. laymuun sheebada waa liin dhanaan daawona waa liintaas khaleelka la soo madoobay. badana Soomaaliya laga keenaa, carabaha Soomaaliya looga keenaa. dhanaankii biyihii aan isku soo qasqasay, cusbada dhanaankiisa dhadhansaday. warqadihii ii haro aad adeeg ahay korka ka saaraysa. mubaasharatan laguma shubo ama buweela u dhigee ama waxa ku shubay warqada korkeeda.
saxana ku gambinay laazim saxan dhal inuu ku celiyo way biyo soo kor saaray taqriiban waxay saarneed 1 saac oo 10 daqiiqo dhiman waa ka bixinayaa markuu abaar yaalay isla markii asoo karkaraya ma la gidin karo laakiin weli wuu kulul yahay markuu abaar yaalay waa gidinayaa saxan weyn oo dhalaa soo qaatay waa gidiyay 3 dabaq aan ka dhigay asxaabta bilhan oo shifo wal caafiya idin leedahay samayso sida u samaysan lahayd ama sida loo sameeyo waxa la dhaho maxshi malfuuf asxaabta waxay ku leedahay isha ku macalin oo ujeedin ma sha Allah salaatu ala rasuulillah dandanaanka waxaan ku dhahay alaabta wala cooska waan ku dhahay maliska celin kara dhanaankiisa saasuu u bislaaday marna daayib waa si fiican u bislaaday oo ujeedin isha idin macalinka bariiskii iyo qudaarta gudaha aga shuban sidii ugu jirtaa axmed aan noo dhadhaminaysa ku leedahay bismillaahir rahmaanir rahiim sida loo sameeyo maxshi malfuuf oo dhanaan bisbaaskaada kusoo shubay ku leedahay bisbaas Soomaaliya meel igu tuban ma ku dhex dari karin laana dada bisbaas cuneynina iyo la cunaayay asxaabta waxay ku leedahay ma sha Allah soo dhee ladeerkadu ka soo daato alaabtan waa og hawaab ka helaysiin saan u samayso wax fudud qudaar yar oo basiid ما شاء الله تبارك الله cunto fiican oo cunto caalami ah ku noqonaysa oo caafimaad leh oo saxi ah gacantaada aad ku samaysatay adiga isku hubtid sida u samaysay kuleedahay Axmed ما شاء الله تبارك الله صلاة رسول الله بالهنا والشفاء والعافية بالعوافي إن شاء الله.